السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا غاليga igu ah waa idin salaamaya meel walbood adduunka dacaladiisa kala joogtiin waa walaashiin sahrakiin oo ku jirta toos youtube ama live youtube mudanayaasha iyo marwooyinka iyo caruurta dhammaantiin waa idin salaamaya meel walbood adduunka dacaladiisa kala joogtiin barnaamijkan isaga ah ee maanta ah oo aan doonayo insha allah inta ilaahay uu iga fahansiiyo inaan halkan ka idhaahdo oo ku saabsan oo ku salaysan xamdi wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawo walaal macaan aad baan kuu salaamay soo dhawo walaal macaan aad baan idin sahro wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu marwooyinkii iyo mudanayaashii dhammaantiin waa idin salaamaya soo dhawaada walaalaha sharafta badan mahad soo dhawo walaal macaan aad baan kuu salaamaya dhammaantiin waa idin salaamaya soo dhawaada walaalaha sharafta badan khadra wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin mudanayaasha iyo marwooyinka aad baan idin salaamayaa waana idinsoo wada dhaweynayaa dhammaantiin halkan iyo maanta sahre iyo maanta idinkiiyo maanta maxaa maanta miiska inoo saaran maxay doonaysaa sahrakiin asxaabta qaaliga ku ah ee soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa kala joogta in ay u soo gudbiso amba ay la sheergarayso maxamed wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal qaali soo dhawo geesiyadii baa daawanaya ragga dhaqaaqiisi baa ku jira soo dhawaada dhammaantiin walaalaha sharafta badan waxa maanta miiska inoo saaran oo aan doonayo inta ilaahay uu iga fahansiiyo inaan ka idhaahdo qaarkiin bay la socday safar aan ku aaday soomaaliya safarkaygii soomaaliya maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo aan iskortaago inta layga sheegay ama intan ka arkay qofku waxa uu arkaa buu sheegaa qofku waxa loo sheegaa buu falanqeeyaa waanay kala duwan tahay waxaad aragto iyo wax laguu sheego maskaxdiina meel ka mida dhigta idinkoo mahadsan waxaan ka hadli doonaa insha allah soomaali masiixi in soomaaliya walaalayaal waxa marka u horeysa dadka soomaalida ah ee masiixiyiinta ah ee soomaaliya ku nool waxa la soo gudbay inta aniga ila hadashay iyo inta aamusan iyo inta hadli doonta intaba horda soomaali masiixi waddanka ay joogaan waa waddankii ay u dhasheen marka u horeysa waa waddankoodii hooyo oo ay u dhasheen bay joogaan haddana waxa soo qaarkood ay yidhaahdeen waxaana soo food saartay ama nala soo kulantay cabsidaasoo ah maadaama ay rumaysan yihiin qof waliba uu biliif garaysan yahay waxa uu biliif garaysan yahay maadaama ay yihiin soomaali masiixi dadka kale ee muslimiinta ah ee halkan jooga markaa waddanka ay wadaagaan ilaan waddanka way wada leeyihin ma ogtahay inay ka cabsoonayaan haddii ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waxaan nahay soomaali masiixiyiin naftooda ayay u baqayaan naftooda ayay u cabsoonayaan qaarkood ii yimi markay i arkeen inaan ahay gabadh soomaaliyeed oo ka timi waddan kale markay ku arkaan inaad waddan kale ka timi oo dibadaha aad ka timi way kula hadlayaan waxay ku odhanayaan waan ku aragnaa inaad ka timi bannaanada laakiin baqdin baan ku nool lahay annaka halkaan joognaayo baqdin baan ku nool lahay markaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay in dadkaa soomaaliyeed ee halkaa ku nool ee masiixiyiinta ah in cabsida laga daayo soo food saartay ay ka cabsanayaan dadkaa kale in ay dhibaateeyaan walaalayaal inta la noolaanayaba waa in yar oo kooban oo cimriga qofka bili-aadankahay intuu gaadhaa waa in kooban dadka quluubta ilaahay baa badbedela dadku waxba ma hanuuniyaan waxaan odhan lahaa dadkaa walaaladeenahee soomaaliyeed cabsida ha laga qaado
oo waddankooda si xor ah ha ugu noolaadaano si bili aadanimo ku jirta ha ugu noolaadaano bal iminka waxaan ka fekeray dadkaasi markay ila hadleen waxaan ka fekeray anigu waddamo shisheeyaan joogaa ka waran waddamadan aan joogaa hadday odhan lahaayeen dad muslimiin halkan loogama baahna amba lay taargatsan lahaa oo odhan lahaa la soo dilo cabsi bay la kulmi lahayd cabsi weyn oo inaga oo dhan ummadda dhan la kulmi lahayd markaas walaalayaal dadkan cabsidaas soo food saartay baqniinka ay ka baqayaan inay isi sheegaan diidayaan qaarba horta waddankeennii markaad tagto dadka qaarba waxbay kuu sheegayaan qaar waliba waxay aaminsan yihiin bay kuu sheegayaan qaar baa xoolaha neefka xoolaha bay soo qabanayaan maalinta khamiista ay hilibka cunayaan maalintaa khamiista ay neefkaa gowracayaan neefkaa marka la gowraco inta aan haragga laga bixinin neefka haragga laga bixinin tuubada biyaha lagu dhaamiyo maaragtay tuubooyinka ama markaad wax maaragtay doonayso inaad beerta iyo rushayso tuubada aad soo qaadatay sidaa biyaha ku tirada maaragtay tuubadaas halkan aan neefku ka saaloodaabaa laga gelinayaa waxbaa ku rakiban waxaas uur ku jirtay oo dhan buu soo qaadaya markaa kabacdi bay cunayaan oo qalanayaan oo ka saarayaan haragga ka saarayaan ma sheegan karaan oo waxay ku leeyihiin cabsidana soo food saartay oo kale waxa weeyaan ma sheegan karaan inay yihiin soomaali masiixi kuwaasay ka baqayaan kuwaasi waxay odhanayaan haddaanad anigu diintaan aaminsanahay aanad aaminsanayn khatar baybay qofka naftiisu ku sugan tahayba markaa walaalayaal dadku inay wada noolaadaan oo bili aadanku wada noolaadaan ayaa qurux badan markaa dadkaa walaalaheena ee soomaaliyeed ee dalka waa dalkoodii bay joogaane culayska iyo balasharka faraha badan ha laga qaadan anigu odhan lahaa maskaxdiina meel ka mida dhigta idinku waxba ma hanuunin kartaan qof inaga mid ahoo wax soo hanuunin kara oo la odhan karaa inta la soo hanuuniyo ma jiro quluubaha allah baa gadgadiya qof waliba wuxuu aaminsan yahay ha loo daayo dadka yaan la laynin walaalayaal haddii dadka la laayo maxaa soo hadhaaya walaalayaal maxaa soo hadhaya dadka haddii la laayo war waddamaanu joognaa annaga war qof maanta nagu xadgudbi karaa ma jiro war qof maanta na soo cabsi gelin karaa ma jiro war qof maanta na odhan karaa haddaydan diintayda qaadanin waan ku dilayaa ma jiro walaalayaal markaa dadkan walaalayaal soomaaliyeed xuquuqdooda ha loo daayo waxay aaminsan yihiin ha loo daayo waxaan arkay oo aan u kuur galay masaajidada ayaan qaarkood u kuur galay waa markan soomaaliya aaday waxaan eegay shanta waqti eegay way igu maxaan ku dhahdaa shanta habeennimo ma awoodi karaynin inaan bannaanka u baxo soo gelaysa masaajidka ma fahmaysaan laakiin inta kale afarta kale waan awooday inta masaajidadaas soo gelaysa inaan u kuurgalo dad intee leeg baa soo galaya masaajidada qaarkood waxaa soo galaya ku tukanaya laga yaabo dad aan 10 gaadhin waddankana waxaad leedihiin waa 100% waddan muslima baad leedihiin isnaad ma aha waayo waddanka wax badan baad arkaysaa markaad tagto wax badan baad la kulmaysaa markaad aragto dadku markay kuu sheeg dadka kale way ka cabsoonayaan laakiin buugga waxay kuu furayaan qofka Soomaali masiixiga ah buugga wuxuu kuu furayaa markuu ku arko inaad qof waddan kale ka timi tahay ood ummado kale la soo dhaqantay
oo dad yaqaana xaquuqal bini'aadanka yaqaana aad la soo dhaqantay ood soo aragtay bay isku kaa aaminayaan oo ay kuu sheegayaan amaba intay telefoonka kaa qortaan ku odhanayaan markaad tagtaan ku soo wacaya ama ay isla markaa halkaa kuu sheegayaan iyagoo si gaara kula baxaya kasoo gudub gabdhaha qaar baa waxay dhahaan baqdin baan u qabnaa waxaad arkaysaa gabdhihii jilbaab bay qabaan maxaan ku idhaahdaa indha shareer bay qabaan galoofiskii bay qabaan waa dadka halkaa maraya ee soconaya waxay u qabaan cabsi ay ka cabsanayaan dadkaa kale ee walaalahooda ee soomaaliyeed inay waxyeeleeyaan war dadku ha noolaadaan ilmaadeerayaal war dadku ha noolaadaan war dadku ha noolaadeene dadka nolosha u ogolaada war dadka nolosha ha loo ogolaado oo qofku gurigiisa wuxuu aaminsan yahay inuu ku aaminsanaado oo uu farxad ugu noolaado oo wanaag ugu noolaado oo carruurtiisa nabadgelyo ugu noolaado oo raggu nabadgelyo ku soo xaroodaan oo aqladooda ku yimaadaan iyagoo aaminsan inay yihiin masiixi oo aanay baqaynin gabdha iyo wiilal ila hadlay waxay yidhahdeen dadka yaga bannaanka jooga nama soo booqan karaan nama soo booqan karaan haddii ay ka hadlaan miidiyaha nama soo booqan karaan maxaa yeelay hadday miidiyaha ka hadlaan dadkaasi oo is yidhahdaan waddankoodii hooyo dub ugu noqda oo dadkoodii soo salaama eriboodkaa loo fadhiyaa waa loo fadhiyaa eriboodkaa loo fadhiyaa waxaa la soo dabagelayaa hooyooyinka qaar baan carruurahoodii intaasoo sano arkin walaalayaal qaarkood miidiyaha hadday ka hadlaan ay yidhahdaan ha imanin hooyo for your safety ha imanin hooyo amaba ay ku arkaan waddamo kale baqdin ay baqayaan oonay dalkoodiiba aanay dalkoodii iyo waalidkoodiiba soo salaami karin walaalayaal ka waran hooyada adigoo intaasoo sano ka maqnaa oo aad istiraahdo soo booqo oo lagu yidhaahdo ay tahda ha imanin ilan adiga afkaaga waad hadashay ha imanin oo ay ku ballamaan waddamo kale waddamada jaarkeenna ay ku ballamaan sida etoobiya oo kale kenya oo kale dhulalkaa kale ee xaquuqal bini'aadanimadu ay ka jirto aan dadka la dilaynin la leynaynin dadka la leynaynin la dilaynin war soomaaliya iyo ilmaadeerayaal dadku in yar baabaynu nahay dhammaanteen oo dhan marka la isku keen wada daro oo dhan ummadaha aan la noolaano qof walba we have to respect each other waxaan anigu joogaa waddamo aan diimaha bini'aadanka la faragelin kama hadli kartid wanaag mooyaane xumaan kagama hadli kartid respecti garee qof waliba whatever you believe it you have to respect we have to respect each other dadkaa walaaladeena aad baan uga walwalay dadkaa walaalaheena ee soomaaliyeed een waddankoodiiba farxad ku joogin ee kii bannaanka joogay aanu tegi karaynin ma tegi karayo markaa maxay yidhahdaan maxay markaa sheegtaan waddankee baan u dhalanay bay markaa yidhahdaan ilan ka awow ka qarni waddankaa yar bay u dhasheen waddankii yaraa haddii aanay kuwii bannaanka joogay ee miidiyaha ka hadlayna aanay ku dhici karin inay soo galaan waddankii kuwii joogayna aanay cabsi ku nool yihiin waa dhibaato waxaan odhan lahaa walaalayaal dub ha laysugu noqdo nolosha dadka ha loo ogolaado dadku inay noolaadaan oo wanaag ku wada noolaadaan waxaad doonto aaminsanow qofka nolosha u ogolaada nolosha ha loo ogolaado bini'aadanka walaalayaal bilxaqiiqatan walaalayaal bilxaqiiqatan aniga dadka halkan i keenay naftaydan ka fikiray anaa miiska isi saaray wax badan baan idhi maxaa miiska inoo saaran
anaa miiska isi soo saaray waxaan idhi aniga maraykan baa isoo qaaday kow waa laysoo anoo qof walaalkaya oo soomaaliya oon garanayo hebel hebel u garanayo oo weliba isaga 35 sano la yidhi waa la quudinayay oo marka halkan bariiska loo roga isagana loo rogay na dhibaateeyey oo aan ka soo cararay yaa nabadgeliyo waxaan u galay waddanka Kenya anigaygana maanta idin la hadlayo nabadgelyo Kenyaan u galay qof Soomaaliya ay soo dhibaateeyey dhibaatada waan ka la wada midnahay ma ogtahay way isoo dhibaateeyeen waa soo cararay yaan ka cararayay qof Soomaaliya inuu dilaan ka cararay 35 sano waryaadhe nin 35 sano naagtiisii iyo caruurtiisii la quudinay ka marka loo rogo gaariga kana u roga aan topiga ka yara baxan yar waaba isla midkii de topic xagaas baan ka soo cararay Kenya nabadgelyo u galay maraykan baa isoo qaaday imay oranin eeg walaalkay bay soo dilay ma ogti oo 30 sano la qooshan iyo 30 sano la quudinay soo dilay ma ogti ma oranin haddaanad qaadanin diinteeda kuma soo qaadayna imay oranin haddaad muslimtay kurkan kaa goynaa imay oranin nabadgelyaa lay fidiyeyday open hands weji furan tigidh bay iga soo bixiyeen tigidhka diyaarada iga soo bixiyey iyagaa maraykan i keenay caydh waxaa nala siiyey lacag baa nala siiyey caydh baa nala siiyey carruurtii baa iskuul laygu daray aniga baa laygu yidhi dhexda xidho ka kac meesha igal iskuul gal qof diintayada soo farageliyeyna ma jiro peace and love baanu halkaa markaa ugu nool weliba sidaa waxaa laygu yidhi haddii cidi ku farageliso oo aad baqataan wax cabsiyaya waxaad dareentaan soo garaac askariga waa ku imanaya niman waaweyn oo murqa waaweyn baa dadka u yimaado saa yidhahda what's happening haddaad soo garaacdo what happened to you tell me fahmaysaa war markaa Soomaaliye hays cunine dam iska siinaye isdhib war waxa ma hanuunin kartaan war ilaahay baa dadka soo hanuuniya war qulubaha ilaahay baa gadgadiya war dadku ha noolaadeene bal dadkan Soomaali masiixiga iminka wadanka degan dadka ila wadankoodii bay joogaani yaa la layni walaalayaal yaan la layni dadka ha ku noolaadaan wanaag iyo farxad iyo habi ninku gurigiisa iska yimaado isagoo habiya gabadha gurigeeda ha iska joogto iyadoo habiya carruurta iyagoo habiya iskuuladooda iskuulla gaara hadday doonaan ha samaystaano maamul gaara ha samaystaano meelay ku tukadaan ha samaystaano waxaa jira dad maalin baxa Soomaaliya waa u soo kuur galay meelo badan baan u soo kuur galay markaan tegay hello are you with me can you hear me that's what I'm talking about baby halka inta iska soo fadhiistay kamarada iskama soo furina ma odhanin Soomaaliya dad baa la dulmaya ma odhanin I see it and I talk to them mays weydiisay iminka waatan salaad yaa muuminiin marka la yidhaahdo ee la isku soo baxoday wax 10 ka yar baa masaajidka soo galaya duhurka dhan casarka maghribka where is the people dadka xagee aadeen meeshaad aragtana waxa masaajidadu waxay yihiin yacni markaad 4 guri dhaafto masaajid baa jooga 4 guri marka joogto masaajid baa jooga masaajidka waxa loogu tala galay hal qabiil kaliya inay ku tukadaan hal qabiil baa iska leh nin baa lagu magacaabay qabiil baa lagu magacaabayba masaajidka dhan ee beedka Ilaahay lagu tukan lahaa wax weyn baa jira arrimo badan baa jira overall dadka hala daayo walaalayaal dadku peace and love ku noolaadaan walaalayaal ha noolaadaan dadku ha noolaadaan war dadka ha noolaadaan walaalayaal dadku bal ha noolaadaan ha neefsadaan baqdin la'aan baqdin la'aan qof yidhi baad sheegaysaa masiixi baan ahay qof yidhi baad sheegaysaa Soomaaliya meelo aad u fara badan taleefan soo gacanta kuma haya haadhe taleefanka islama taagi kartid banaanka
there is no safety, no safety at all. wad baqaysaa waxaa lay sheegaya iminka magaalada maxaan ku dhahdaa magaalada Hargeysa waxaa lay sheegay nin dibadaha ka yimiday dibadaha nin ka yimi bay kuwa tuugii soo taargadsadeen way arkeen tuuga maaha waa niman is urursaday oo doonaya dadka inay dhibaateeyaan waxay ogaadeen ninkani inuu ka yimi dibadaha day walaalayaalow albaab la jabiyaynu arki jirnay oo laga soo galo markaa tuugtu ka soo gasho daaqad la jabiyaynu arki jirnay oo markaa tuugtu ka soo gasho iyo waxa ku doonayaaba ka soo galaan siligaan u jiday siligaa Soomaaliya safiitadii jinkadii ka qaadeen gurigii bal qolkuu joogay yaa u sheegay qolkuu joogay waa dad waxuun isla shaqeynaya unba u sheegay dee qolkuu joogay marka siligaasaan ku dhahay jinkadaasaan ku dhahay safiita yar baa ka xigta jinkada Soomaha jinkadii baa laga qaaday halkaas ka soo kale gurigii are you okay marka waxaad yeelaysaa waa ogahay nabadgelyo ma jirto nabadgelyo fiican Ilaahay hayna siiyo dalcana Ilaahay hayna dal weynu haysanay dadka hogaaminta Ilaahay naga xumeeyo ma garanaysiin waa ogahay iminka inta aan ka hadlay halka aan ka iri Soomaali Masiixiga peace and love hal la siiyo nolol wanaagsan ha ku noolaadaan inta iminka aan halka ka iri dad badan baa soo yaaci doona subhanallah la ilaha illa allah muhammad rasuulullah wada ashhaadana iyo darbiga madaxa la wada dhacaya baa soo baxaya oo aflagaada iyo dhibaato sameynay laakiin overall marka la isku soo wada ururiyo waxa loo baahan yahay in la nabadgeliyo ummadda islaameed oo aan dhiig faraha la gelin oo la nabadgeliyo dadkaasi ha noolaadaan ilaahi abuurtay baa ku shaqale qof kasta you feel me barasharka iyo culayska iyo walwalka iyo ma lagu soo sheegi doonaa dad ku nool ilmaadeeraya dad ku nool waa dhibaato qof ka baqaya waan soo maray anaa soo maray markan la haystaha markan ahaa baan soo maray second walba saacadan tirinay believe or not odayga saacadiisa أنا ساعد كل إيه مصرنين ودباني دين مشي يوم مرة ساعد على جيسون إذا مربوان إيه جاي ما يصرنين وذي ساعد يسمر بإيه ووقت ما ووقت يمسدي وياه بيش أنتي ما تمر يسا أنتي ندافتي بيش إن وقت ويم صدي وعبسي وحاسي يا وعبسي maalintii baana la qaatay maalintii xitaa de indhihii aad ku arkaysaa wixii kugu soo socday habeenkii baa ugu xun habeenkii cabsida kula soo gudboonaata wax ka xun ma jiraan qof kastoo idinka mid ahow waxaad ogaataa ee wadamadan fadhiya iminka wadamadan dalka dibadiisa aan Soomaaliya joogin dibadahan kale ee xuquuqdu ka jirto fadhiyo waxaad ogaataa adigoo aflagaadaynin oo igu soo cararin oo shahaadada boobin haade miya wadamada soo nabadgeliyo uma dhimanin walaal macaan maxaad u timaadeen halkan bal maxaad u timaadeen halkan bal halka aad timiyo lagu leeyahay cagaha dhulka ka qaad ka waran habeen walba qaysid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wadnaha dadka istaagaya haada taagba ku soo boodaya bili aadanka marka walaalayaal Soomaaliya jacaylka inaga maqan walaalayaal jacaylka inaga maqan aan isjeclaano oo bili aadanka jeclaano yaa oo ilaahay rasuulkiisa maxamed aha aan jeclaano walaalayaal aan isjeclaano dadku hay isjeclaadaan bal dadku hay warbal nacaybkan inta duubtaan meel iska dhigo oo nolosha dadku u ogolaaday bal inay dadku neefsadaan haya malchis thank you for watching brashere ma garateen halka maxaadara idinkuma soo jeedinayo oo maxaadara idinkuma soo daliilinayo laakiin waxaan idin la sheer gareynayay wixii aan wadankii hooyo ku soo arkay Soomaaliya ku soo arkay ayaan idin la sheer gareynayo idin la qaybsanay taa fahma waa ogahay dad aad u fara badan oo adduunka dacladiisa kala jooga especially Soomaaliya jooga dulman aad u dulman bil xaqiiqatan aad u dulman marka ilaahay ha ka saaro walwalka ha ka saaro
waddankeena nabadgelyo ilaahay inooga dhigo waddankeena waa waddan caafimaad qaba waa waddan wanaagsan bilxaqiiqatan markaad airportka ka degto iyaad hawada dareemaysaa ma ogtahay hawada dareemaysaa oo aad nolosha dareemaysaa oo caanaha caafimaad kale aad dareemaysaa subagga caafimaad kale aad dareemaysaa in hilibka caafimaadka qaba aad dareemaysaa waayo inaga hilibkan culno waddankeena lama soo durin sida waddamadan aan joogno injection laguma soo muudin waxa weeyaan waa natural maartay xoolihiisu waa wax natural oo cidi mudin weeyaan oo wax kasta caafimaad ba kusoo galaya ma garanaysaan walow dadku aanay haysanin dhaqaatiirina way joogtaaye walow dadku aanay haysanin medicationkii dawooyinkii iyo qalabkii dadka lagu daaweynayay ilaan walaalayaal meelo badan baan soo maray xanuun hayla soo gudboonaado oo aan xanuunsado laakiin intaa waan soconayay haddana waalantiin maan lugeynaya sow bajaaj la raaci maayo taxi karaysan maayo oo socon maayo indhaha yareeso ma shaqaynayaan hello are you with me can you hear me that's what I'm talking about baby walaalayaal waan isku soo noqon doonaa hala ogaado dadka in la nabadgeliyo qofka walaalkaaya nolosha u ogolow ha ka hor iman inaad noloshiisa goyso ha ka hor imanina oo ka wacdiya oo dadkaasi walaal waddankoodii bay ku nool yihiin jacayl ha ku noolaadaan jacayl iyo freedom ha ku noolaadaan hala neefsado gormaa la neefsanaya walaalayaal excuse me ma garateen xaquuquna insha allah way heli doonaan xaquuquna insha allah bidmillaahi kariimo dadkaasi xaquuq ay ku hadlaan bay heli doonaan walaalayaal bay heli doonaan iyo inay noolaadaan oo si wanaagsan u noolaadaan oo caruurtooda la ciyaaraan baqdin la-aan caruurtooda la ciyaaraan oo ninku baqdin la-aan caruurtiisa iyo reerkiisa uu yidhaahdo maanta xagga soo baxaynaa maanta beerahaan aadaynaa maanta meelahaasaynu aadaynaa meelahaas soo yaro marmaraynaa cabsi la-aan waddankiisa iskaga dhex mashmusheexaan ha la helo haddii kale ma waddan baa markaa haddii kale haddaanad marka tagtay aanad kuba raaxaysanaynin ka waran walaalayaal soomaaliye aad baan idiin salaamaya walaalayaal meel walbad adduunka dacladiisa kala joogtiin fadlan ogaada jacaylka inaad qof walaalkaaya aanad xub u qabin hibaaqay wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakatu walaal macaan soo dhawo walaal macaan aad baan kuu salaamaya walaal macaan aad baan kuu salaamaya adduunka qof waliba xaquuq buu leeyahay adduunyada qof kasta oo inaga mid xaquuq buu leeyahay xaquuq bili aadanimada iyo fiiri miyaanad maqlin war dadkan maxaa daboolay war dadkan dadkii ku odhanaya haddaanan diintaan rumaysanahay aanad ila rumaysanin waan ku gowracaya balku qof kule ka warramo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wax badan baa u baahan inaynu iskala hadalno wax badan baa u baahan inaynu miiska saarno ya qof kasta oo inaga mida maxaa maanta miiska inoo saaran markaan ku leeyahay maxaa adiga miiska kuu saaran miiskaaga waxbaa saaran micnaheedu maaha inay bakeeriyayaal iyo cunto yar iyo halkan ay wax yaalyaalaan is a problem waxbaa jira waa in wax laga hadlo waxbaa jira faamligaaga waxbaa jira ka socda nin walowba faamligaaga liidh garee waxaad aaminsan tahayna aaminsanow dadkana yaan la dilin dadka nabadgelyo ha la siiyo nabadgelyo qof kasta ha loo fidiyo qof kasta nabadgelyo ha loo fidiyo walaalayaal nabadgelyo ummadda ha loo wada fidiyo waxba ma hanuunin kartid ya anigu waxaan garanayaa berigii aan waddanka yaraa inta aanan ka bixin inta aan ku darsade kolleyba qaar badan baa beerka igala baxaya iminka berigaan yaraa waddankii joogay horta qur-aanku markuu qofku xanuunsado qur-aanku lacag ma ahaan jirin maskaxdaada meel ka mida dhigo waxaan kuu sheegay qur-aanku haddii iminka shiikh haddaan xanuunsado tusaale
saarakiin baa xanuunsatay waan berigaa hore oo aabbahay iigu yeedho wadaadkii lacag ma ahaan jirin wadaadkaasi habeenkaasuu imanayaa reerka u imanayaa casarkii baa la keenayaa habeenkaasuu imanayaa wadaadka casho wanaagsan baa la siinayaa hilib baa neef baa loo qalayaa neef yaroo wanaagsan baa loo qalayaa bariiskii iyo subagii iyo caanihii iyo adduunyadii baa la siinayaa halkaasuu habeenkii uu seexanayaa uu ku relax garaynaya halkiisaas subaxii buu cashar uu akhriyaya qur-aankii akhriyaya cashar buu tufayaa dadkiiba casharka la siinaya xoolaha maydhax ma aragteen maydhax inta sidaa biyaha loo geliya xoolaha saa loogu casharin jiray saa loogu shayrin jiray oo shiiqu la dabageli jiray oo sidaa ugu shayrin jiray shilin lacaga ma qaadan jiray iminka haddaad xanuunsato inta aanu qur-aanka ku saarin wuxuu ku odhanaya imisaad isiinaysa markaasaad oranaysa ayaa markaasuu ku odhanaya imisaad isiinaysa oo gorgortan buu gala qur-aankii waa gorgortan buu galay anuu shaki weyn be baan soo qaadayba ma ogtiin imisaad isiinaysaa markaasaad hareeraha yare egeegaysaa ilaa dago la garanaysid markaasaad maxaad intaad igu saaraysa waa kaas qofkii qur-aanka la saaraya lacag baa laga qaadaya kow maskaxdaada meel ka mida dhigo may jiri jirin berigii hore laakiin hadday jirtaa now wadaadka markii hore berigii hore adimaya ee beydka ilaahay ee masaajidka ilaahay ka adimaya mu'adinka ah lacag ma qaadan jirin iminkay noqotay day qabiilkii dhistay masaajidkaas ee bildinkaa dhistay yaa wadaad keenaya u eedaama $150 buu bishii qaadanayaa dhakab $150 dhakab baa lagu siinayaa baa lacag buu ku eedaamaya salaad yaa muuminiin lacag baa lagu eedaamaya what's left maxaa hadhay tell me war hebel baa tufku khayraha inoo geeya la odhan jiray war hebel baa qur-aanka oo tufku khayraa xertii baa iman jirtay timuhu kala dillaacnaayeen baa iman jirtay oo qalinleeftii baa iman jirtay oo maxaan ku idhahdaa hareeraha kala fadhiisan jirtay wixii ma jiraan yaanay jirinba wax la waayay geelow ninkii waalan baa u duda arki jiray doon anigu ma ihi oo ma ihi waxaasi way jiri jireen maxay imakana waddankii uga jiri waayeen inta saa isa taago ma odhanayo ma ogtaa laakiin dadkaas la nool dadka ee cabsida ku nool ha la daayo nolol wanaagsan ha iska helaan oo nafisa cimriga qofka bini'aadamka waa in yar walaalayaal haddii maaragtay xitaa aad baribaad gaboobaysa qof baribu gaboobo markaa dadka iska daaya walaalayaal I love you all Somali people yeah xasaasiga dee marka wax xasaasiga laga hadlo ilaan dadkan way kugu soo wada yaacayaan moogti wallaahi billaahi tallahi dad wada yaacaya baad arkaysaa kabaha kula hormaraya haddaabad sooba qaadaba qof oo masiixiya haddaad soo hadal qaado waa lagu garaaci iminka beerkaygala baxaya runta mafantaa walaalaad baan kuu salaamaya salaan gobeed salaan qaali aan kugu salaamay walaal qaali ya iminka qofba aan ku garanaynin weligaa yalla baa halkaas dhalaasoo arkaya dhaladaasaan idhi soomaalida masiixida hala daaya baan idhi beerka igala baxayaan kaliyaha igala baxayaan wadnaha igala baxayaan organkoo dhan ba igala baxayaan waa shiilayaan wax kalena soo qori maayeen subxaana allah laa ilaaha illa allah unbay qorayaan anigana beerkii flavor in yaroo qajaara iyo micnaheedu ma aha inay dabka intay iga soo saaraan sida dhakhtarka intay qalaan inay iga soo saaraan maaha moogtahay oo shiilaan micnaheedu waxa weye wordska la qoraya maa kelmadda la qoraya maaragtay baa la yahdaa beer kala bixis kelmadda la qoraya aad qorayso baa beerkaad ka gala baxaysa qofka ma ku soo celin karaysa hadhowto no hello war mudanayaasha
iyo marwooyinka iyo caruurta intaba dhammaantiin waan idin wada salaamaya, waana idin soo wada dhamweynayaa saqiir iyo kabiir intaba. nolosha ha laysu ogolaado. qofka bili aadankaa weligaa ha ku duulin inaad tahdo qofkaasan soo waxyeelaynaya. kabaha ha ka kor qaadanin qofkaas walaalay. meel walbood adduunka dacladiisa kala joogtiin. qof kastoo qurba maanta joogow isweydii inta aad hadalkayga jaaj garaynin ama labadan qof ee yaryar ee quruxda badan ee iga dambeeya aanad la hadlin. war horta hebel hebelow ama heblaaye hebel hebeley warda qurbaha maxaa ku keenay ya war horta bal qurbahan maxaa ku bal kelmadda idinku isweydiiya. wallaahi bilaahi baqdin baa idin wada keentay. aan garanaya moogta baqdintii oo weli dad ku jiraan oo weliba baqdintii mid ka xun oo laban laaba bay qaarkood ku jiraan maanta. subxaan allah. ilaahu waddanka inoo deji oo dadka inoo deji oo iskeen jeclaysii meel walbaan joognaba. fideogan la sheer garay asxaabtay qaaliga kugu ah. times upna sii insha allah. wixii fikirkaaga ana nooc kasta oo aad qorto waan soo dhaweynaya. wax kasta oo aad qorto waan soo dhaweynaya. intan soo dhaweeyaabaan weliba kala shiilayaayoon shaandhaynayaayoon isku celcelinayaa. waan shaandhaynayaa. fahmaysaa? waan soo wada dhaweynayaa. laakiin muhiimadda hadalku markuu soo dhammaado oo aan weligay ku celcelin doono intan ka noolahay in dadka nabadgelyadiisa la sugo. nabadgelyadu waa important. haddaanu qofku nabadgelyo haysan nolol ma haysto. ka huleel waa kabta ka ilo. waa kabta ka ilo. ha sida idin bad marba daaqada istaagi doonta. goormuu soo galaya ninkii guriga xaarkaa ku jiray? goormuu soo galaya? ha goormuu soo galaya ninkii guriga xaarkaa ku jiray? saacadda yeeg war yeeg saacadda. saacaddan garanayaano war saacadda yeeg intaasay maraysa. gabalkii intu dumi lahaa intee ka hadhay? intee ka hadhay? ha maqrib intee ka hadhay? intaasaa ka hadhay. subxaan allah. ilaahay waqtiga haynoo tiri. waxaan maqli jiray shimbirta xuurta la yidhaahdo ayaa la yidhi wadkeedaa loo sheegay moogta waxay shimbiraha uga duwan tahay maaragta. waxaa la yidhi maalintii ay dhiman lahayd baa loo sheegaa. siday u naxaysay ayay sidaa noqotay baa la yidhi. walaalayaal ayay sidaa noqotay baa la yidhi. waa shimbirta xuurta la yidhaahdo. xuurta miyaydaan maqlin? xuur wadkeedii baa loo sheegaybaa. iska dhiga dee imika inaad imika wada dhalateen oo 91kii aad ka wada dambaysiin. iska dhiga xuurtaa wadkeedii lo war qof la yidhi waa lagu dili dee waad eegi uun saacadun baad eegi walaal macaani saacadun baad eegi. iyo waa goorma. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. ilaahii naga qariyey baa mahad iskale kun goor goorta lagu imanayo. inaa lilaahi wa inaa raajicuun. baqdintee subxaan allah. subxaan war bal maqdin dad baqdin ku noqon ilmo gooraad habtay garan maysid oo uur baad leedahay garan maysid inaad wax cuntay iyo in kale. ilmihii ma dhaqaaqa ma soconaya caloosha ma ku dhex soconaya ma qof baqanayabaa og goortu ilmuhu ku dhex soconaya inay ogaato ilmihii ma nool iyo horta kugu jiray ma nool naftaadiba warba hayninba. dadka iska daaya ha noolaadaane. waxay doonaan ha aaminsanaadeen inay dadka daaya walaalayaal. I love you all. ragga dhaqaaqiisa aad baan idiin wada salaamaya. ragga dhaqaaqiisa aad baan idiin wada salaamaya dhammaantiin. marwooyinkana aad baan salaamayaa. barnaamijka intaan kusoo gabagabayn doonaa. waa idiin soo noqon doonaa allaha awoodda leh haddii uu aqbalo. haddii alla idmo walaalayaal waa idiin soo noqon doonaa insha allah. Bye bye now. Love you all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.